Asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu. Khayr sida uu idin ku soo dhawaada video kale oo cusub. Halkani maanta waxaa kaga warrami doonaa Arsenal iyo suuqeeda. Sida ogtiinba seasonka uu dhamaanaya, Arsenalna Champions League ayay usoo baxday, iyada iyo dhowr team oo kale ayaa la confirm gareeyay in ay usoo baxeen Champions League sida Man City, Barcelona, Real Madrid, Napoli, team kale oo aad u tiro badan. balse aan fiirino Arsenal newskeedii ugu dambeeyay ee suuqa ku jiro. Marka koowaad waxaa la xaqiijiyay in Zinchenko iyo Saliba ay inta seasonka ka dhiman ay injury ku maqnaan doonaan, taas oo ku sheegaysa inkasta oo marka horeba Saliba uu maqnaa, tani waxay ka macnaysan tahay in Kieran Tierney loo baahan yahay saacadan la taagan yahay, loogana baahan yahay inuu buuxiyo booskii Zinchenko. Runtii waxaa looga baahan yahay inuu soo noqdo oo teamku soo noqdo, inuu caddeeyo inuu yahay ciyaaryahan aad u fiican, inuu caddeeyo runtii Arteta inuu yahay ciyaaryahankii mar walba lagu bilaabi lahaa ciyaaryahan Zinchenko ka fiican. waa xilligii naftiisa uu caddeyn lahaa inuu maartay first team oo nin regular oo ka noqdo mar walba bilaabo. warkaana waa la cadeeyay. sidoo kale Bukayo Saka ayaa isna wararka waxay xaqiijinayaan in maaragtay heshiis cusub uu saxiixay, kaasoo Arsenal ay maaragtay ay soo shaacin doonto seasonka inta uu dhamaanin ka hor. balse inta ka horeysa Arsenal waxaa la yidhi dib ayay u dhigaysaa Bukayo Saka heshiiskiisa. daraadna markii la weydiiyey Bukayo Saka wuxuu yidhi kii heshiiska saxiixiisa Arsenal la weydiiyey, wuxuu yidhi sidaba aniga Arsenal ayaan maartay sidaa mar walba kusoo celcelin jirayba, aniga Arsenal ayaan ahay, ciyaaryahan Arsenal aan dhinac uga socon ayaan ahay. marka isna waan arki doonaa inta sane oo Arsenal uu saxiixay iyo maaragtay lacagta loogu darayba waa mid aan ogaan doono. sidoo kale Arsenal ciyaaryahankii ka maqnaa ee da'da yaraa Charlie Patino, ciyaaryahankii la oran jiray ee loonka ku maqnaa ee isna soo noqday. inta uu Blackpool uu ku maqnaa 2 gool ayuu soo xiray iyo 4 caawin ayuu sameeyay, halka uu ciyaaray 30 ciyaarood. hase ahaatee Romario wuxuu xaqiijiyay in ciyaaryahanka si permanent ah uu u bixi doono oo kalaabka ka tagi doono, maadaama uu sheegtay ciyaaryahanka inuu u baahan yahay inuu starter uu noqdo, ciyaaryahan mar walba soo bilaabayo. xilligan la taagan yahayna Arsenal meel ay maaragtay uu ka soo galay ciyaaryahankan male, wax walba uu sameeyo, taasoo maaragtay kalaabka ku qasabtay in ay ciyaaryahanka codsigiisa u aqbalaan, taasoo ah inuu Arsenal uu ka tago. ciyaaryahankaas uu tigi doonaa markii uu seasonkan uu dhamaado. sidoo kale isna maalmahan waxaa aad loo hadalhayaa ciyaaryahankan Granit Xhaka. runtii Bayer Leverkusen ayaa ciyaaryahanka aad ugu baahan, si daran bay ugu baahan tahay ciyaaryahankan, aad bayna u raadinaysaa. sida ogtihiinba 2024 ayuu dhamaanayaa heshiiska uu kula jiro Arsenal Xhaka, inkasta oo option uu haysta kaasoo ah inuu maaragtay hal sano kale uu sii joogi doono. hase ahaatee wararkan xataa Sky Sport ayaa soo dhigtay, waxaa kaloo soo dhigay Fabrizio Romano oo nin aad uga faallooda ah. ciyaaryahankan Xhaka ma bixi doonaa sanadkan? uma maleynayo, ilaa inay Arsenal ay ciyaaryahankan 50 milyan 60 milyan ay ku helaan, waayo ciyaaryahankan waa seasonkii ugu fiicnaa noloshiisa ayuu haystaa, 5 gool 7 caawin. runtii ciyaaryahankan waxaan isleeyahay aniga wuxuu u qalmaa Arsenal in uu u dheelo Champions League sanadkan. sanad dambe haba laga fikiraba in la iibiyo ama la dire, sanadkan waa inuu Arsenal Champions League uu dheelo, waayo uu qalmaa. wuxuuna runtii ah ciyaaryahanka kale ee khadka dhex Arsenal u ciyaarayay sanadkan ee aadka loogu tashanayay. Partey injury ayuu galayay, maartay ciyaaryahankan wuxuu ahaa ciyaaryahan mar walba available ah. runtii teamkana wuxuu ahaa maartay nin leader oo hogaamiyo oo lagu tashto. hase ahaatee Xhaka Arsenal ma sii daan doontaa, waa arki doonaa. sidoo kale Pablo Mari ayaa isna la xaqiijiyay in seasonka marka uu dhamaado oo maaragtay Monzo uu sii joogi doono si permanent ah, Arsenal uu ka tagi doono. heshiiskii Arsenal iyo Monzo ay ku heshiiyeen ahaa haddii ay uu ku caawiyay in ay maaragtay Serie A sanadkan aysan ka noqonin oo relegation ay aadin, Arsenal waxay dib ugu soo celin doonaan 6 milyan, taasoo maaragtay xilligeedii la gaaray. Monzona waxay ku guuleysatay in maaragtay runtii ay Serie A sanadkan ay joogto oo weli ay sii ciyaarto. taasna waxaa xaqiijiyay Fabrizio Romano, 6 milyan ee Arsenal loo celin doonaa, sidaa ayuuna kaga tagi doonaa
ogow Pablo Mari waa ciyaaryahankii ugu horeeyay ee Mikel Arteta uu saxiixay, haddana waa uu baxayaa. ciyaaryahankana warkiisa waa intaa. sidoo kale Arsenal sida ogtihiin waxay raadinaysaa ciyaaryahan garab ah. hase ahaatee dad baa waxay isweydiinayaan ka waran Reece Nelson waxa uu xaqiijiyay Fabrizio Romano in ay Arsenal heshiis ay usoo bandhigtay, taasoo runtii ciyaaryahanka asoo ka shakinin Arsenal oo waraaqda indhaha kaga dhuftay oo ku soo celiyay oona ku yiri ma saxiixayo. hase ahaatee wararka ilaa hadda way socdaan. sida ogtihiin Reece Nelson wuxuu ka soo baxay academiga intii seasonkan la keenayayna gadaal baa laga wada keenayay. runtii markii game walba la soo geliyay wuxuu ciyaaryahanka magaciisa lahayo ciyaar uu save gareeyo Arsenal sidii Bournemouth oo kale, ciyaaro kale oo isna caawin uu bixinayay. runtii ciyaartii Man City oo markii la keenay Arsenal ay maartay nafta ugu soo celiyay. ciyaaryahanka wuxuu ku andacoonayaa in laga dhigo first team starter. hase ahaatee waa aad bayna u yara adagtay laftirkiisa. That's why wuxuu leeyahay ciyaaryahanka waa inaan kalaab kale aan raadsadaa. Brighton ayaa ka mid ah ciyaaryahanka ay kooxaha isku dayay in maartay free ay ku saxiixaan, runtii wages fiican ay siiyaan. marka weli haatee Arsenal kama quusano ciyaaryahanka, weli wada hadal ay kula jiraan. sidoo kale Moussa Diaby oo aan wax badan kaga soo waramay suuqii hore ayaa isna sidoo kale Arsenal ay raadinaysaa. ciyaaryahankan runtii wuxuu bedel u noqon karaa Bukayo Saka markii si loo fiiriyay xagga attacking iyo pace markii la iyo orod iyo finishing waxa aad ugu fiican Moussa Diaby ciyaaryahan ay dhahan. runtii Arsenal maartay Bayer Leverkusen lacag badan ay sheegan doontaa. saate isna waa ciyaaryahanada listiga Arsenal ugu jira ay raadinaysa January-dan ma soo qaban doontaa, isna waan arki doonaa. sidoo kale waxay wararka iyaguna ay aad u soo celcelinayaan in ciyaaryahankan Real Sociedad u ciyaaray 23 sano jirka Isbaanishka ah ay dhahaan Martin Zubimendi uu aad ugu dhow yahay in Arsenal uu saxiixo. ciyaaryahankan sida wararka ay soo gudbinayaanba Xavi ayaa suuqa geliyay. Xavi ayaa aad u hadalhayay, aad buu u jecel yahay in ciyaaryahanka uu saxiixo uu rabay, balse maadaama ay maartay Barcelona ay maartay financial difficulties ay halkan ay xilligan ku jiraan uma suurtagelin in ciyaaryahanka ay keenaan. runtii ciyaaryahankan Xavi ayaa aad u doonayay in uu maartay oo saxiixa ayuu rabay. hase ahaatee uu suurtageli weyday. ciyaaryahanka waxaa madaxiisa ku xiran oo uu ku bixi karaa kalaab kaga tegi karaa oo kaliya lacag 55 milyan ah. runtii aad buuna ugu dhow yahay ayaa la yiri Arsenal inuu ciyaaryahankan uu saxiixo. isna waxaa la yiri wuu ogolaaday. Arsenalna maartay way ogoshahay, waa un waqti iyaduna in Arsenal ciyaaryahankan uu saxiixo in kalo. hase ahaatee isna waan arki doonaa. waxay badbaday dadka ay leeyihiin waa saxiixa ugu horeeya ee Arsenal ay sameyn doonto January-dan. runtii aad ay ugu dhowdahay Arsenal in ciyaaryahankan saxiixdo. hase ahaatee ciyaaryahankan ma keeni kartaa. ciyaaryahankan waxaa lagu soo dhaweeyaa inuu yahay ciyaaryahan Busquets oo kale ah. ciyaaryahanka aad taqaanaan weynaa ee maartay Sergio Busquets, Barcelona legendkeeda ee hadda mar dhow ka tagi doona isna seasonka marka uu dhamaado. runtii waa ciyaaryahan aad u fiican. Jorginho oo kale weeyaan ciyaaryahanka marka aad fiiriso qaabka uu ciyaarayay, waa ciyaaryahan mar walba available ah, aan maartay injury badneen. waa ciyaaryahan maartay aad oo maartay takhasus ugu leh inuu breaking line uu sameeyo, in maartay banoonta meelaha khatar uu ka bixiyo oo markii ay safka difaacay sida u wada galaan oo wada taagan yihiin oo difaacanayaan. waa ciyaaryahan runtii aragti dheer u leh inuu maartay baasaska meel fiican u dhigo. hase ahaatee Arsenal saxiixeedii ugu horeeyay ay sameysay ma noqon doona, isna waa arki doonaa. haddana waxaan soo gaarnay ugu dambeyntii iyo gabagabeyntii wararkii suuqa Arsenal. waxaan rajeynayaa akhyare inaad aad uga hesheen videogan. haddii aad ka heshay fadlan subscribe saar, like inoo dheh, asxaabtaadana la wadaag si aan u helno asxaab fara badan oo Arsenal fans ah. haddana waxaan idinkaga tegayaa sida ay nabadgelyo. wassalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh.